السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام يا دمان أصحابتك كدري سم أكتر آدي أدبا وما سنت هدي سبسكرايب تري ومشى عديسي هدي أذن عدين فضلا سبسكرايب دجار نلقى وأنا ما سنت هاي أنت أسكبعدي لايكته شيركه ساس وحوالو يعيو waxa weeye maanta waxaad iga barateen in aan idin soo gudbiyo waxyaalo idin ka qosliya cudurkan dhiigga Soomaaliyeed ku soo badanaya iyo Soomaalidu sidaysan u dhiiranayn. Soomaalidu waxaan u maleynayaa baraanka bay haystaan cudurkan astaamihiisu haddii aan ku hormaro horta see loo xakameyn karaa. cudurkan waxaa loo xakameyn karaa dhalinyaro iyo waayeel in ay u wada shaqeeyaan si wada jir ah taas oo xakameynaysa faafinta cudurka coronavirus. cudurkan sidaan wada ognahay ma laha wax dawo ah iyo wax talaal ah ama ka hortag ama qodobo haddaad ku dhaqaaqdid aan ku xakameyn karno fiditaanka cudurka coronavirus. haddii fadlan qodobadan si fiican u dhageyso raacna talooyinka wasaaradaha caafimaadka ay bixiyeen ama talooyinka ay bixisay hay'adda WHO waxaa ka mid ah in lagu xakameyn karo cudurkan inaad gurigaaga joogtid oo aad ku ekaatid ilaa intii xaaladdu iska beddelayso oo ay noqonayso ay meel u dhacayso. Maraykankii awoodda la ogeyto lahaa iyo Shiinihii iyo waddamadii reer Yurubka oo lahaa meesha adduunka ugu sarreysan marayna ba hadda waxay ku hayaan yaaban oo ay ka cadda annaga waddankeena Soomaaliya ama waad aragtay burbur iyo waxaas isaga jiray. oxygen way ku yar tahay meelaha taallo wayna kooban tahay. waxa weeye in maaragtay la taxadaro oo aan la dhayalsan waddamadii dhakhaatiirtii laga awood badnaa ba intaas oo 500,000 u maraya. fadlan gurigaaga joog ilaa inta xaaladdu dhan dhacayso. waa qodob in aad joojisid asxaabta aad la kulmaysid, in aad qofka markaad la hadlaysid aad u jirsatid ilaa 6 feet, inaad u soo dhowaan. cudurkan wuxuu ku faafi karaa si fudud ayuu ku faafi karaa, hase ahaatee iyadoo ah taabasho qofkii coronavirus-ka qabay meeshu taabtay inaad taabatid oo aad sidaa ku qaadaysid. meeluhu waa kala duwan yihiin, maro, bir iyo gacantu waa 10 daqiiqo. maradana wuxuu saarnaan karaa coronavirus 9 daqiiqo. birta iyo waxyaalahaas meel qabow haddii ay tahay aysan kulayl olin, meel kulul aysan ahayn ama bir qoraxda taalla aysan ahayn oo meel qabow ah guriga gudihiisa ah oo si qorax arkayn, wuxuu ku noolaan karaa ilaa 12 saacadood. waa khatar 12 saacadood. intee qof baa taaban kardha, intee maradan taaban kardha, intee maradan maryo kale u gudbin kardha. waxaan idinkula talinayaa dhalinyaro ama ummadda Soomaaliyeed ama waayeel dhammaan waxaan kula talinayaa in xitaa dharkay maaragtay magaalada kala yimaadaan in ay qoraxda dhigaan, meel qorax in ay dhigaan si ay u dhinto baalkan qoraxda ka adag. fayraska koronaha waxaa ka adag baashiida, waxaa ka adag kulaylka hadduu ku dhaco waa nagu kala dhimanaya. haddii aad feerayn ka dhidna feerada saa oo marmari. haddii aad baxdid oo asxaabtaadii la kulantid oo aad soo qaadid cudurka COVID-19
haddaba waxaad samaysay asxaabtaadii waa ka soo qaaday ehelkaagii iyo gurigiinnii baad keentay, taas oo ah khaladka koowaad. adiga ayaa xakamayn kara cudurkan, adigaana faafin kara. halkii mar qofku wuxuu u gudbin karaa, qofka qaada halkii mar wuxuu u gudbin karaa ilaa 3 qof. 3 qof markuu gudbiyo, 3 kale kiina 3 kale usii gudbiyo, milyanaad bay tegaysaa, 500,000 bay tegaysaa. marka haddii aad fadlan waxaan idin leeyahay talooyinkan raaca, yan la dhayalsan. waa nagu soo badanaya cudurka coronavirus, awoodna uma lihin. cudurka coronavirus maadaama uusan tallaal lahaynna dawo, waxyaalo mataqaanaa qofku intuu caafimaad qabo ama markuuba ku dhacaba uu cuni karo baa jira. subaxdii aroortii in aad cabtaan 1 galaas oo isugu jira sinjibiisha iyo biyo diiran lagu daray iyo liin qac haddaad ka siisid, waxa weeye cudurka xitaa coronavirus hadduu kugu dhaco wax saas aynuusa ku yeelay ama saas ku sahayna. ku dadaal inaad toonta cuntid. toontu waxa weeye sunta ayay dilaysaa. waxa weeye hadda ka hor taarkiibaa adigu 3 nin bay soo qabteen. 3 nin markay soo qabteen baa waxaa la yidhi sunha lagu dilo. 3 nin oo maxaabiista loo soo qabtay ayarortay jawaabku waxaa uga buuxay toontaas intay kala soo baxaan bay markay sunta la siiyaba waxay sameeyaan toontaas bay cunaan. wabilaahi tawfiiq. haddaad isku aragtid calaamadahan coronavirus maxay yihiin, horta ma ogsoontahay? waxaad isku arkaysaa qandho saa'id, waxaad isku arkaysaa jirka ku xanuuna, jir xanuun, waxaad dhuuntoo cuncun. fadlan biyaha ku dadaa, biyahana cabsi degdega. biyaha shablaantaadu iska ka adkaado, waxa weeye waxay kaa caawin kardhaa carabku markaa ka qaadatid oo dhuuntaan intaan buu wuxuu sii joogayaa 4 beri. ma hal mar inuu gudbay sambabada tegaya. intaan adigu dhuuntaan markuu kasoo takhaluso wuxuu tegayaa sambabada markuu tago sambabada waxay u qaybsamaan right and left. branchiol kasta waxay afka ku haysaa alveolkaas ayuu tegayaa. alveolku waa meesha gas exchange-gu ka dhaco oo oxygentuna ka soo gasho, oxygentuna carbontuna ka baxdo. waa meeshaas. maxaa keenay qofka oxygenta ku adkaanaysa markuu sambabada tago? inta hore waa neefsanaya, laakiinse waxa weeye badibkiisa dhawaaqaya ninkiis dhigta. fadlan haddii aad isku aragtid calaamadaha coronavirus aan hadda soo sheegay, nambaradan waa 3 nambar oo kala duwan. haddii aad coronavirus calaamadaha isku aragtid 449 waa nambar, 343 na waa nambar, 988 na waa nambar. intaasoo nambar baa wici ka dhaa badbaadi dalkaaga, dadkaaga iyo ummadaada iyo ehelkaaga iyo asxaabtaadaba. haddii aad isku aragtid asxaabtaada iska karantiin. gurigiinna haddii aad isku aragtid calaamadahan qol isku xir, kana soo dadka hala macaamuli. intaas ayaan kusii gabagabeynayaa. asxaabay, like-ta, subscribe-ta, share-ta, waxaba dee nacala shaydaan iyaabata isu yaala saa uga yaabtee. waxaa weeye hada wasalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. channelka Som Actor-na dee farta saas meesha subscribe-tii saa uga caseeyey nacala shaydaan iyaabata isku yaala. waad mahadsantihiin kun iyo 1 jeer.